السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آد بندي سلام يا خيري عافمد بندي رجينيا. maanta waxaan sameynaynaa quraacii challenge-ga ay nagu soo sameysay Somali Cooking and Culture. Iyada nagu horeysay, iyada nagu soo challenge garaysay. Maanta ani waa iska gudayaa. Marka meesha waxa iigu jira burkii ani kanaan ku qiyaasayaa inaan isku badiyo ma rabo 250 ayaan aniga sameynayaa 2 xabo ukuna maxay haytoy intaan ba dheeraad ku ah waxa weeye waxa ku jirta 14 xabo oo ah xabaasuud iyo qaadada yar tan afkeeda hore oo ah maxay haytan sinsinta madowga ah sinsin cad iyo sinsin madow aan kala isticmaalaa ta madow oo burka kor lagaga daadsho ani waa shiiday marka waa kana wixii kale oo dhan caanihii iyo oo kuwan tii powder-ka ahayd iyo tii sonkorta ahayd labadaba ukuntii huruudii daqiiqdii ama bur qofba soo u yaqaano caana boodhina waa kana wax siyaada intaas baan ku daray kan muggi oo ah waa malabka camalo sibra la yiraahdaa sida malabka loo isticmaalaa waana original waa kaas marka kaas koobka muggaana wax sonkor ma isticmaalayo deciliter-kaas isticmaalaa waa 2 deciliter ka muggiis baan ku darsanayaa malabka isla socod wanaagsan aan isku dardarayaa maadaama kaligay hal gacan ku duubayo wayna isku dardaraa marka isku dardaraayo tusaa si bir loo qasalaydin tusimaayo laynin la bari maayo laakiin wuxuu ka sameeyay yahay bes baan idin soo bandhigaynaa ukuntii baan hadda qasaynaa ukuntii waxaan isku qasaynaa iyo fixisadii waa teaspoon afka hore joogta ma badna waa ku dar sonkor meeran marka malabkiina waan ku daro malab maaha laakiin waa malaboon yani malab ahaan baa loo isticmaalaa ani intaasaan ka isticmaalaya sonkor badan ma rabi saan isku soo noqotay waa ukuntii iyo malabkii iyo fixisadii hadda intan isku jirta wax yar baan isku gargaraacaya waxa soo sanqaran diidaya waan isku soo laabanayna saan ku soo baxay burkeeni ma sha Allah tabarakallah waxyaabaha sirro ka madmadoobina waxa weeye sinsintii madoobeed sinsin iyo filfil madow iyo xabaasuud baan isku daray marka waa kuwaas isugu madmadow iyaga nool aniga kuma ridi karo maadaama ciyaal wax ka cunayaan waan shiiday waan ku daray caraf iyo macaan iyo kala iska arag buu noqday marka ma sha Allah xoogaa baan sugaynaa dabkan ku soo guranay yani si loo duba iyo video-gu saano inuu ugu dheeraanin si loo duba iyo si loo sameeyo midna la isma barayo waxyaabaha laga sameeyay baa la istusayay marka sababtu tahay gabadh Soomaaliyeed si bur loo sameeyo si loo qaso
saliidda loogu guro midna lama tusayo. markay saan videoga inugu dheeraan anigana waan degdegsanahay wax yar baan sugaynaa. waxaan kusoo gurayaa birta ama daawaha ama bur ama quraac ama madhaasi qofba siduu u yaqaano weeyaan. waa diyaar, wax yar baa ka dhiman, la socod wanaagsan. burkeeni waa soo dhammaaday. saas jilaac u noqday, saliidna ma leh, saliid la sheega ma laha. wixii daa ogeydeen oo dhan baa ku jira. run afuuradii baa loo gaadhay. shoorbadaydii iyo timirtaydii baan sii diyaarsaday. dee maasha allah tabaarakallah. challenge-ga aniga waa iska guday maanta. nimay ku hadhay hawle haysaa. wixii lagu sameeyey unbaa laydin tusaayey in sidii loo dubiyo sidii saliid loogu daro. mina inimaan tusin sababto tahay qofna bari maayo, qofna ma baranayo, waa la wada yaqaana. laakiin maxaa lagu daray unbay sheekadu ahayd iyo sidee loo qasay ama loo sameeyey ama loo xashay. waa quraac ama bur ama madhaasi. anu laba nooc baan u sameeyo, noocan dheer iyo noocii balbalaadnaa. labadaba waan sameeyey, qafiif baan ka dhigay maasha allah. aad iyo aad buu u casaaday ama u guduutay, saliid la sheega malaha. maasha allah tabaarakallah. borotiin wuu ku jira. galabti ciyaalka waa u duban kartaan, afurka waa ku darsan kartaan. dee maasha allah laydinka sheekeyn maayo sidii bur loo cuno ama quraac loo cuno ama mandhaasi ma idhahaan. video gaaban buu ahaa. aniga waxaan iska guday xilkii isaaraa. xilkiina waa iska guday, waa kana. maasha allah tabaarakallah. saanu kusoo dhammaaday, saanu inoo noqday. challenge-gii weli waa socdaa. gabdho kale way kusoo biirayaan insha allah bidmillaahi kariin. waa aniga Somali Cooking and Culture. ismo uma sameera baryahan waa yar mashquushay laakiin waa socotaa. iyo aniga Xamdi Janno Cosmetics. hoos baa idinku qoraya jananada kale. gabdho kale way kusoo biirayaan isniinta oo maanta ah inay kusoo biiraan baa laga yaabaa isbuuca dambe. insha allah waan wada joognaa, waan is arki doonaa, waana idinku soo dari doonaa kuwa kalena. aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Ramadaan mubaarak meel kasta adduunka ka joogtaan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.